Olha meu amor. Okay. ومahadsantiin dhammaantiin sharaf weyn bay noo tahay inaad caawa nagala soo qayb gashaan xafladan aan ugu dabaaldegayno shirkii ka dhacay Hobyo nabadaynta ahaa. Waxaan caawa dhammaantan isugu wada nimid sidaan u ayidi lahayn go'aamadii ka soo baxay una taageeri lahayn guddoomiyaha cusub ee loo doortay beesha iyo nabadayntooda Professor Cabdiqaadir Maxamed Shirwac iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa Cabdullaahi Cabdulle Weheliye. هذا الذي أفرمنا هو عندنا الشيخ محمود عبد الله. يا شيخ محمود عبد الله وليتفضل. وحمدك السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي إذا ما هذا كان يسوتقل نوجد كي عاو كلن كيرن سيدو كانوا حنون هالعلنا هيا كسوق يقل كينا وقت كدير أوقار كانوا فديي حفلدان oruntii muhiimadeeda ama loogu magac daray taageerada iyo aydaada wixii ka soo baxay shirkaas waxaan ku taageeraynaa guddiga halkaa lagu doortay oo guddoomiye uu yahay Professor Cabdiqaadir Maxamed Shirwac iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa Cabdullaahi Cabdulle Weheliye iyo dhammaan xubnaha guddigaas oo runtii doorashadoodu ay ahayd mid lagu doortay aqoon diiniya iyo mid maadi intaba loona arkay xilligan inay yihiin dad ka bixin kara xaaladda ay ku jiraan dadka degan gobolkaas Galmudug iyo dhammaan gobollada kale ee Soomaaliya haddii ay ka gudbaan inay wax ku soo kordhin karaan arrimaha Soomaaliya. arrimaha Soomaaliya guddigaas oo runtii aan rabno caawa inaan u ballan qaadno ugu ducayno xilka loo magacaabay oo xil iskaa wax u qabso ayna ugu adeegayaan ummadooda iyo dadkooda in ay waqtigooda siiyaan. waxaan kaga fadhiyaa caawa in aan ku ballan qaadno haddii aan nahay jaaliyadda gobolka ka soo jeeda Galmudug iyo haddii aan nahay ummadda Soomaaliyeed ee caawa halka nala joogta intaba. sidoo kale waxaan ku ayidaynaa qodobadii shirka ka soo baxay oo bees looga dhigay qaadashada ama ku dhaqmidda diinta islaamka in ay u noqoto bees dadka gobolka degan in ay ku kala baxaan wixii dhex mara oo ku aadan yacni xadgudub. taas oo qodobka labaad oo arrintaa looga dhigay in qofka Soomaaliga oo ku nool gobolkaas sida diinta islaamku qabto ha ka soo jeeda meeshuu rabo inay ilaaliso naftiisa maalkiisa iyo sharaftiisa. waxaa ka mid ahaa qodobadii ka soo baxay in markii dadka gobolka Galmudug degan ay arrintaa wada gaarto in gobollada dariska la sida Puntland, South West, Hirshabeelle iyo Jubbaland intaba la gaarsiiyo ergey in aan isla qaadano in diinta islaamka dhaqankeedu uu noo noqdo kulligeen wax aan isla qaadano. waxaa halkaa marti nooga oo jooga
afarta maamul goboleed oo kale marka laga reebo galmudug ayaa waxaa jooga wakiiladoodii waxaa jooga wakiilkii Jubbaland saaxiibkay Jamaal waxaa jooga wakiilka Southwest Maxamed waxaa jooga wakiilka Jubbaland Mulki Xaaji Xuseen waxaa jooga wakiilka Hirshabeelle Ali Barcad waxaan rabnaa ama ku beeskaraysan tahay shirka xafladan caawa iyo taageeradeenu dadka mas'uuliyiinta oo matalaya jaalidaha kale oo Soomaaliyeed waxa ay loogu yimaadeen wixii arrintii ka dhacday ama shirkii nabadda oo ka dhacay Hobyo inay u arkeen wax u wanaagsan in uu kala gaaro ama gaaro dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ayna tahay waxa kaliya oo noo noqon kara waxaan ku walaalowno ama la kala celin kara mudane iyo marweyn runtii waxaa la soo gaaray haddii aan fiirino guddigaas iyo doorashadiisa iyo quality-gooda iyo aqoonta aan u leenahay dhinaca horumarinta Professor Cabdulqaadir Maxamed Shura waxaa lagu xasuustaa ama laga filahayaa inuu dhowr iyo 10 sano ka hor ku laabtay waddanka sideenoo kale isagoo ahaa qurbajoog ka bilaabay magaalada Gaalkacyo waxbarasho heer dhexe iyo heer jaamacad intaba ah in lagu guuleystay oo ay maanta jiraan dadkii jaamacadaas ka baxay oo ah dhaqaatiir injineero iyo dad kale oo ah xirfadayaal bulshada wax badan ku soo kordhiyay Professor Cabdulqaadir doorashadiisa iyo hoggaankiisa guddigan ayaa waxaan ka sugaynaa in sidii ay ahayd wadada Gaalkacyo iyo isku xirta Hobyo oo ahayd 260 kilomitir oo ayna mari jirin baabuurta qayb ka mid ah in maantay awla loo socon jiray in ka badan 12 saacadood maanta baabuurta ay socoto wax ka yar 3 ilaa 4 saacadood nooc walba yihiin horumarka noocaasa waa ninka asagoo runtii haysta nolol iyo raaxada aan ku joogno Yurub Mareykan ka tagay oo inuu dadkiisa wax taro wax ku soo kordhiyo noloshooda bedelay go'aansaday waxaan kaga fadhiyaa horumarka noocaasa intaydaani haddii aan ku dhaqaaqno qofba wax qaato hal midna aan ku dhaqaaqno wax badan baan ka bedeli karnaa waddanka iyo xaaladda uu ku sugan yahay Cabdulqaadir markii wadada la sameeyay halkan loogu yimid asagoo sarfayga ugu horeeyay asagoo tashi jaaladu la yimid wala waxaan rabnaa inaan jidkan sameeyno dad badan suurtagal ma yahay laakiin sharaxaadka bacda xalay waa wax fiican laakiin qof aaminsan ma jirin 260 kilomitir baan dad shacab u dhisaan jeebka ka dhisaan bay haddana waxay noqon kartaa waxa maantay loo arko inay ahayd impossible laga dhigay possible mara jirto intii wax ku tartay qof jeebkiisa dhimanaaday ama tabahayo wallahi waxaan bixiyay baahidoodii baa haysa qof wax ugu korreyn mooyaan walaalayaal maraba inaan waqti ka qaado aad iyo aad baan waxaan ka mahad celinayaa ka soo qaybgalkiina taageeradiina iyo in aan garab istaagno guddigaas iyo hawsha wadaan oo aan ka rajaynayno wixii hore u qabteen wax ka badan inay haddana diyaar u yihiin inay noo qabtaan waa mahadsantiin asalaamu calaykum بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دمان قرارها كسو قيب قري رجل يدمر وحانكو سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب مركور إلهي بأمها العلمنا الحمد لله رب العالمين نقول ميي نفهم سيئة وحي ونأكسنا يكلا عيهم يوم إن أنصغل لمادنا ودعينا وقادرنا
lana dardaarano haddii ilaahay yidhaahdo bacda ilaahay mahadiis kasoo qaybgalkiinu wax weyn ayuu ku fadhiyaa sababtoo ah dadka hobyo ka bilaabay shirka dadka ay shaqada u qabteen oo ay hawsha hobyo ugu qabteen ayaan dhammaanteen wada nahay marka waxa wanaagsan oo ka soo baxay inaan muujinno inaan taageersannahay oo aan garab istaagannahay shaqo weyn ayay ku fadhidaa arrintaasu waxaan aaminsanahay runtii anigu reer hobyo maahi laakiin waxbaan ka deganahay aniga ruuxaygu laakiin weligay ma aanan tegin shirku intuu ka socdana 4 maraan la hadlay waa aan bogaadiyey hawshu inta lagu jiro oo shirku socday dadka jooga oo saaxiibadey ah waa la hadlay waa bogaadiyey shirkaasu haddii uu miro dhalo soomaaliya oo dhan ayaa rajo ka qabta sababtoo ah waxaa ku shiray 5 beelood oo runtii soomaalida dhexdeeda miisaan weyn ku leh oo haddii ay wax wanaagsan qabtaan soomaaliya ay dareemaysa neecawda iyo wanaagga ay meeshaas ka qabteen marka shirku ma aha shirku sida loogu talagalay haddii uu dhaqan galo waxaan aaminsanahay waa shir guulaystay soomaali oo dhan u guulaystay waxaa la rabaa marka dadku inay qalbiga uga duceeyaan aadna ugu farxaan shirkaasu inuu noqdo shir miro dhala haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rabaa marka guddiga la doortay oo runtii brofesorka ka aqaan brofesor shirwac wuxuu ahaa nin iskaa wuxuu qabsa ku shaqeeya nin dadka u istaagay nin samafal ah nin reer magaal ah nin aqoon-yahan ah nin siyaasiya nin dhaqanka wax ka yaqaana xaaladda soomaaliya meesha ay marayso waa aaminsanahay haddii uu helo guddiga lagu daray iyo dadkii ku daray soomaalida hadday gar istaagaan brofesor shirwac inuu meel fiican wax ku fura waa aaminsanahay isagana waxaan leeyahay waa nimaan ku kalsoonahay sababtoo ah qofka bini aadamka waxaa la qiimeeyaa inta uu qabtay iyo waxa uu hamigiisu uu yahaa la qiimeeyaa brofesor shirwac shaqada uu qabtay iyo meeshaan noogu yimid anugu waa la sheekaystay hankiisa iyo waxa uu baahan yahay waa ka weyn yahay nin beeleed nin haddii ilaahay kula jufo nin hankiisu han soomaaliyeed yahay waay marka waxaan rajeynaa brofesor shirwac inuu meel fiican noogu furo oo aan lugaha lagu dhegin taas insha allahu tacaala waxaan rabaa in hawsha la shaqeeyo intaas kadib waxaan rabaa waxaad ogtihiin mar haddaan isu nimid galmudug waxaa ka socda qabanqaabo weynaa ka socota meesha la yidhahdo Dhuusamareeb caasimadii shir baa ka socda ilaa 1,000 qofood baa isugu tagtay 11 qabiil galmudug ay lahaydna meeshaas waxaa la rabaa inay dhaxda marada ay ku xirtaan la rabaa waxaan ka rabnaa reer hobyo dadkii hobyo hawsha roobka uga daay waxaan ka rabnaa neecawda inay soo gaarsiiyaan 11 qabiil inay soo gaarsiiyaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان شرفت ماشي على السوين ده قروح البدن أربعين سلام عليا رجع الدمر بقى كل بدكي جوهر بعشر رحي لمن كان الدنيا المحل هذا بروفيسور عبد القادر محمد شروح يا عبد الله وهلي كحجان كيسة أربعين وبعدين وأنا بريئنا رجع جوهر بعد شرحي أو قروح لودي وناقودي شيء مركا عنو وحنا صار شرطة أفر حبوا أو برامبر أو ما عرفت وحنا ربع سومالي ربضان ماشي سقوط تمد أفر تقبله ماشي على جنب عارك تمد برامبر كان وكور ريي شرطة أفر كبير وهبيو كل شيء طيبان وقلت له جلي مركا أبي أنا ماشي عم تقول سنين كسر جلال أنا ما عرفت سومالي ودن وجنا دعين دونه وحي مناسب كودان وجش يجي دونه لكن شنتي وهبيو كل شيء طيب اللي يري هذا دبيش إلى عاصمات كواسو قارتو مقالة المصبرة يقبل لنا بحوض أنا عايز قارتو إلى بردوينات مادية جوال حداي واحد مغلهي وحاقاضنا هيا شريعة الدين الإسلامك واحد مغلهي جبلان
iyo hirshabeelle iyo galmudug iyo waxaa yidhi puntland oo ayagaba laga bilaababa oo sharciga ayagu inay noo wacaan bay ahayd intaan laga qaadan qolada hobyo aysa qaadan inay nooga hormaraan bay ahayd laakiin waxaa boodaa koobkaas inaan qaadanay annagu oo hobyo la tagnay marka afartii qaadatay bal hadday qaadato annagaa hadhowta marooqsan doona tan banaadir xoog ku keeni doonee haddii alla idmee bal insha allahu tacaala waxaan leeyahay afartii xaboo baraanburka ahayd baan rabaa inaan meesha la istaago bilowga xafladeenna bisinkaan u qabanayaa burdaha yaasiinka iyo aayadaha birtaa allaha boqorka ah ummadiisa baahi tira ayaan baryayaa ballanqaadka kii aqbala beesha hadal gidiro gogashooda taal hobyow heshiis in la gaara hadaf buuxa iyo midnimo waqtaa loo huray in nabad reerka wada harsado oo hawlyaraan laguma helin waana loo halgamay haliyey iyo geesi hanaqaada iyo haween dhammaan waa heegan oo hawlgal bay wadaan haddaanse hal abuurka suugaanta uriyanahay ducaan la hareera joognaa har iyo habeen ee allow heerkaan rabniya kii hirgala ka yeel baan leedahay waxaan leeyahay dadkii habacsani asaagooda waa ka hoos oo waa habsaamaa qofkii aan hurdada ka kicin ma hooriyo subaxa ardayaani kaad la barin ma gaaraan heer dadkii aan hoggaan lahayn bulshaan hal abuur lahayn guul ma haran karaan oo waa hungoogaa ninkii tala ay ka hoos baxda ninaan hilbadirir aqoonyihiin walaal ma galo hadal yar habargidiraha awraartu waxay ku tahay haddaad hadaf dhabiya gaartaan heshiis waxtara waa hubaa inaad helaysaan hanka aad rabtaan ee dhankayga iga hooya ducadayda hadiyadda ahaada kuwii hal adag yeesha had iyo jeer ilaahay hooda iyo siiya magac har weyn hoggaanna u noqota bulshada ay kusoo hirtaan waxaan leeyahay diinku waa haybadoo waa hanuunka guud ilaah baa hodana hanti waa ninkii tabxada geesi baa hoole hayin baa la dhaansadaa horseedku dhuluusan hubin looma rarahayaan abaar baa holacle doog baa hiyiga u ruma aqoon baa lagu hirtaa higsi baa waxtara wixii aad hibato mar un baa la soo helaa oo xoog is-haystaa hinjiya hawl kastoo ku adag dadkii rabbigood u hoydaa cadaalad hela hooriskiiyo aragta gabaygayga waxa waldhiga inaad habargidiray hilin toosan wada martaan halbowlana aad u noqotaan habeynta qaran hayeeshaale iyo hiyiraacna layska jiro oo aad heegada sariya haybsataan dayaxa hor u socotaan oo qayrkiina reer degtaan kuna hamuun goyso dhulka hooyo waxa dhex yahay heshiiskiiyo nabadda reerkaan hobyo u fadhiyo ducaan la hareera joognaa har iyo habeen ee allow heerkaan rabniyo ducaan la hareera joognaa har iyo habeen allow khayraadka ku hanuuniyo habeen allow sharaftaada huwiyo hidaayo saar allow hawshiyo u fududee habkay rabaan waxay ku hawoonayaan weynaha u hirgeli makhluuqana uu ka haybaystaa had iyo jeer hoggaanka dalkeenna hanaqaad allow ka yeel wowhan weynahay hoggaanka dalkeenna hanaqaad allow ka yeel adduunyadu uu ka haybaystaa had iyo jeer nafluhu haw hinaase heelkay wax marinayaan heshiiska ha lagu duugo hadaf buuxa iyo midnimo allow hayo mooye cidna aysa ka hor imaan xabadaan barnaamijka waxaa iskale insha allahu tacaala ninka la yidhaahdo
gudoomiyaha guddiga hadda la doortay ee Cabdulqaadir Maxamed Shirwax professorka waxaan leeyahay Shirwax markii aad asiibteen ikhtiyaartii Shirwax markii aad ishaateen ikhtiyaartii waad asiibteeno ma iduufisaan unahay xilkaas loo idmaday runtii waa istaahilaa oo beesha arrinteeda guud waa nin ururin kara asagu gaal iyo islaam waa afgaranaya waa afgaranayaa hawsha ugu arrinta adagoo agtiisa taal geesi lagu aamino ayatala yaqaan aqoon-yahan weeye oo waa nin aragti dheer iftiinka iyo nuurka iyo waa indhaha bulshada oo waa nin iimaanku buuxo ee xiggelin axdiga waa oofiyaayo ma kala ajaro ee allow ayidnayo u fududay ammaanadaas baan leeyahay waxaan leeyahay allow Soomaali idinkeeda jaabasi kala ilowgiyo allow eedihii ka saar nin walba aamino midkay ood wadaag yihiin islaam baan nahay ducadeedna naga cajiib allah deeq bixiya nabigaa ku dayasho mudan waxaa darajada qofkii diinta aada u jecel dux iyo iimaan qofkii daacada hantiya duraamo ma yeesho dar ilaah qof aan ahayn jannada ma durduurta kaan daarigaa ka sii allow dembiga iyo danuubteenna oo dhan may allow ducada iyo baryada nooga yeel dadaal allow dalabkeenna fidiyo dacwada ajiib daboolkana nooga qaad meesha dulucdu tahay dadka islaynaya rabbiyow dulmiga ka reeb allow dabayl caafimaad oo dawaana sii allow nabad baana deeqdee dalkeenni keen allow Soomaali isku diira oo isku dana oo daaqsinta iyo xeelka labadiiba daris yihiin oo xoolihii la isku daray oo la kala duwayo cidina dood qabin oo ku dakeeya dagal qabow dusheenna babanaya calankeenni diirana adaa daa'ine degdegsiimo noogu keen Soomaaliya ha noolaato ha midowdo ha israacdaan leenahay ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii farxad weyn ayay ii tahay maanta halkan inaan kala soo qayb galo shirkan aada qaaliga noogu wada ah waana runtii haddaan qurba joognahay shir aada iyo aada noo farxad geliyey oo aan annaga nafteena ka bilaabayno marka u horeyso gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka lasoo doortay shirkii Hobyo dad badan ayaa la socon shirkani muddo sanad ka badan ayay guddigii qabanqaabanayay soo wadeen dad badan ayaan la soconin ilaa muddo sanada ayuu qaatay in guddiga gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo 56 xubnood in la soo xulo professor Shirwax waa nin runtii aada qaali noogu ah waana nin ay naga go-an tahay inaan la shaqeyno waxayna noo ballan qaadeen waxay noo ballan qaadeen insha allahu tacaala hadday shanta habargidir heshiiso qof walba 30 sano ay habargidir wax kala dhexeeyeen in aan golon nabadeed u fadino gudaha iyo dibadda taasna waa la qaadanay waxaan kaloo runtii aan ku talinaynaa guddigani in loo hoggaansamo lala shaqeeyo khaasatan qurba joogteena aan la shaqeyno wixii dhaqaale ah wixii xoog ah wax walba inaan ka hadlano waxaan rajeynaynaa haddii Allah wadiro ogolaado in Soomaali weyn ay nagu dayan doonto oo qof walba gunta iyo hoos maadaama dowladdeennaba ay qabiil ku dhisan tahay laakiin qabiil walba uusan isku xirnayn in la helo in qabiilka horta la isku soo xiro si dowladda u shaqeyso waxyaabaha burburka dowladdeena ku keenana ay tahay maadaama qabiilaadka aysan heshiis ahayn oo nin kastoo maanta la soo doorto waxaad arkaysaa dadkii uu ka dhashaa ku dhegan sababteedu waxay tahay heshiis hoosaan jirin marka waxaan isleeyahay mar walba waxaan ku taageersanahay wanaagga wadajirka iyo nabadeynta Soomaaliya ayaa mar walba soo waxaan rabaa inaan ku daro sida aad la socotaan shir weyn ayaa ka jiro galmudug oo lagu soo dhisayo oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay ballan qaadeen dowladdu leeyahay in meeshaan ay ka dhalato waxaan soo jeedinaynaa guddigan la soo magacaabo gudoomiyaha iyo ku-xigeenka in ay soo turxaan bixiyaan qof walba oo magaceena wax ku maamuli doono waa la xisaabtamaynaa hadduusan guddigan soo marin oo guddigan ay soo ansixin qurbajoogta waxaan kaloo aan kula talinayaa sida aad la socotaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre labaduba waa reer galmudug inkasta oo ra'iisul wasaaruhu oo roolkiisii ciyaaray madaxweynahana waxaa looga fadhiyaa qaybtii u aadaneed galmudug inuu ka soo baxo sababtoo labadooduba sida aad la socotaan waa reer galmudug federaalna maanta ayagaa fadhiya
marka runtii annaguna waxaa naga go-an haddaan qurbo joognahay gobolkaas iyo gobollada kale ee Soomaaliya maamul goboleedyada iyo federal systemka lagu heshiiyo in si daacad loogu shaqeeyo qof walba oo xil loo dhiibana in lala xisaabtamo qofka marka xilka loo dhiibo hadduu xilkiisa ka soo baxo oo wanaag sameeyo waa in meel walba aan joogna aan ku taageerna laakiin qofka xilkiisa ka soo bixi waayo waa in lala xisaabtamaa maxkamadda la soo taagaan hadduu walaalkaya maadaama sida aad la socotaan galmudug ay maamulo badan daris la tahay sida Puntland sida Hirshabelle reer galmudug iyo Soomaaliya wada degan tahay sida aad la socotaan inkastoo maamul goboleedna loo qaybiyay haddana meel walba aan degnaa anagoo galmudug ah ayaa meel walba degnaa Somaliland aan degnaa muxuu ahaa Hirshabelle aan degnaa Koonfur Galbeed aan degnaa Jubbaland aan degnaa marka aniga waxaan ku talin lahaa in laga qayb qaato maamul goboleed walba dadka matalayo in ay have to be accountable dad mas'uul ay noqdaan lana xisaabtami karo nin walba oo xilkaas loo soo doorto micnaheedu qabiil uma soo doorto qofku marka xilka loo soo doorto Soomaaliya ayuu xilka u hayaa go'aanka oo qaato talaabada oo qaado in lagu xisaabtamo xaq u leeyahay ma aha in qabiil aan ku difaacno qofka hadduu mas'uul Soomaaliyeed noqdo waxaa looga fadhiyaa in uu mas'uuliyadii loo idmado ilaahay ummadaas ugu baqaa sababtoo ah qof walba oo xilka loo dhiibo ogaada jannana wuu ku geli karaa naarna wuu ku geli karaa labada wuu ku shaqaysan karaa sababtoo ah qof walba oo la dooranayo waa aragtaan kutubka qur-aanka ayaa lagu dhaariyey oo gacanta uu saaray kaas ayuuna micnaha runtii dhib ugu filan annagu inaan inkaarin ama duceyno wax ay ka bedelaysa ma jirto laakiin kutubkaas ay ku dhaarteen believe me dad badanaa ka seexana maanta kutubka Soomaaliya ay ugu dhaarteen ay ballan qaadeen inay ummadda Soomaaliya daacad u noqonayaan xilka loo idmadana si daacad ay ku qabanayaan kutubkii ay mareen ayaan ku daynaynaa aniga sidaasaan qabaa waxaan kaloo soo jeedinayaa haddii Allah uu guddigaas la magacaabay taageero kaliya ayaan looga harin dhismaha iyo horumarka galmudug ay wadaan ama wadooyinka ha noqdaan ama dekedda ha noqdaan ama sistemka dowladeed ay soo dhisayaan ha noqdaan waxaan rajeynayaa inaan haddii Allah uu qayb ka qaadano qurbo joogteena heliyo ugu dambeyntii waxaan leeyahay dadkiina soo qaban qaabiyo shirkan oo aan kamid ahaa waa ku mahadsantihiin waxaan leeyahay taageeradan iyo noqon kaliya microphone iyo message la tiro heliyo waa nalooga baahan yahay wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وعيد السلام يا سلام توقيمها بدن ولا ليال وحن أمهد علينا أولا إلهي نسوك هاي كينا طلباتنا وحن أمهد علينا تتكسوق بقابية ميشان إلهي سبحانه وتعالى وحويان مكوه الرئيسة ميش الاسكي ماذن إلهي له حسوسته ولا حسه وحين تعد صنيا إن فاتح العمره بروفيسورك iyo ku-xigeenadiisa Professor Shirwac hawsha ay hayaan in Ilaahay u fududeeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ugu dhigo oo ha u fududeeyo hoggaanimadu ma aha sida Soomaalidu moodee rida ku dhimata baahi ayaa loo haystaa iska gadaa bini'aadami marka xukunka bini'aadamka haddii Ilaahay ka bixi lahaayeen uma malaynaya inay ku dagaalami lahaayeen meel walba ha noqotee إلهي سبحانه وتعالى وطن كان يعلنها وناجيه وحنا أمسنا هدول والبينان لا يهي قلت مركو أكون يهي أما الأختر يهي أما لين عيدا يهي ومد الشعب كوائم أسمي يهي وحنا قاعد سنة ما دام أنا حرفة إذا إتهاي عافيماتك إن قبلها الصومالية يهين كوا وحبحية كوا الإنته أو درحنا يهين سيبا قبلها معركتي فولانا يا Soomaaliya ilmaha badankooda waa wada rajo way isku dhintaan bayska dawlad walbana waxaa muhiim ah in hooyada ay tahay warshadii meel xanaanaa loo yeelo caafimaad gabdhaha wax bartayna waxaan ka codsanayaa inay noqdaan wadamooyinka kale way noqdaan gabdhahooda way soo cilmigii ay barteen rabbina waa ku weydiinaya dadkaagina way kaaga baahan yihiin oo qof walba nabiga calayhi salaam markii la soo diray ehelkaaga ka biloobaa wax walba marka inay qof walba jifadiisa inuu caawiso way fiican tahay haddana inaan lagu dayanin dad badan waxaa jira aan ogeyn inay mas'uuliyad ka saaran tahay dadka wadankii joogay nabigeena calayhi salaamna wuu sheegay in ilaahay naarta ku fogeeyo dadka gooya dadka raximka ah marka walaalayaal hadalkayga badin maayo aniga qof aqoon-yahan oo xagga caafimaadkaan ahay waxaan diyaar u ahay meel walba Soomaaliyeed inaan aniga tigidkayga inta iska bixiyo training soo siiyo wixii Ilaahay i baray aan meel walba tan kalena waxaan ka codsanayaa meel walba oo dawladda Soomaaliyeed in la caawiyo
waxa aakhira naga horeeya ma aha afka kaliya laakiin inaan anagu lacag aruurino ilaahu may $1 ahaato inteena joogta hadaan go'aan gaarno bil walba lagu rido akoon dadku waxay u noqonaysaa marka gacanta sadaqadaha lagu dadaalo wadankana ilmihiisa ayuu anfici doonaa ilaahayna qulubaha qalbiga qurunka noogu jira ilaahay hanaga baabi'iyo taasaan idinku waaninayaa meel caafimaad ayaan leeyahay oo ku taala Minneapolis waa qaybta natural medicine aniga MD laakiin waxaan ahay ND means neuropathic medicine ayaan bartay marka wadankayga insha Allah waa u celinayaa ma aha inaan anaga intaan tagno haddana nalaho war lacag isiiya annaga waa inaan xoolaheena bixiya aad ayaan uga maseeraa wadamadan Afrikaanka iyaga tigidkooda la baxa dadkoodii soo bara oo si volunteer waxbara soo noqdo kuwaas halka labada qof oo la baro dad kale si baraan marka yaan la qulin insha Allah waan wax ajir ah professorkan u duceeyo salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تايتل كايسيس أو كعب دارنا يا ولي وقبصنا يا. فيان تايتل هذا حساس لي بركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتي هذا هو مهد مقيا وراكي عبدي حاشي ولي وعزومي. في وراها كلو كنتي عزوماتنا في دي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. مرة كفتن كنا كسر المريا نصيحة وحكستو لقبنا runtii annaga waxaan aad isugu daynaa caqligeena iyo kartideena iyo waxbarashadeena inaan tala saarano oon ayada keligeeda isku hadlayn laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax kastoo uu samaynayo saxaabada xataa wuxuu baray duca ah yaa xayu yaa qayuum biraxmatika أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لما أري يا حي يا قيوم واسمين من أسماء الله الحسنى وحكستو سميني سيد إلهي مقعيدي سيناكو بلاد إلهي بي نولا نولش أبوري وحكستو نولنا أبوري مقعيس أكتوت يا قيوم وحكستو قبني سيدنا إلهي يا تولنا برحمتك أستغيث إلهي نحريست هذا أيام كالمي سنينا أصلح لنا شأننا كله وحكستون قبلنا إله وناجي وحكستون قبلنا إله وناجي هذا أسكيجي شيء سقطة الله إلهي سوحس السنة هذا أسكيجي شيء معناها consequence هذا نتيجة هذا نكون مفرحيسي كالمدي إلهي نمايسد marka wax kastoo qabanaysa ilaahay ka toogto ilaahay ee kaalmay haday wax barasho tahay haday guul tahay haday shaqo tahay haday siyaasad tahay everything you do in life ina ku bilaabid sababta aan u leeyahay aniga lafteyda with experience mar kastoo ilaahay aan ka fogahay resultiga kuma farxis mar kasta ilaahay u dhawaatid noloshaada dhan ku qaboobeysa ayada quraan oo badan ilaahay wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa man yattaqillaha yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi marka nolosha markaa fiirisidna qofka dadka ilaahay raadiya ayuu ilaahayna kaalmaya marka waa inaa effort gelisaa inaa ilaahay raadisid waxaa ka dareemaysaa bini aadamka kale siduu kula dhaqmayo the entire universe ayaa kula shaqaynaysa markii maciyatullaahi ay macaaga tahay ilaahay uu garabkaaga uu yahay marka ilaahay waxaan ka baryaynaa abaabulkan faraha badan la sameeyey walaalaha shaqooyinkooda iyo waxay hayeen kasoo tageen juhdigii faraha badnaa ee dhaqaalihii lagu dhixi shaqadan inuu ilaahay barakeeyo tiimkii loo doortay galmudug inuu ilaahay barakeeyo reer galmudug oo la imtixaanay fiir imtixaanka sida uu u kala daran yahay iimaankaaga iyo dadnimadaada iyo waxa kugu jira sida ay u kala weyn yihiin imtixaankan u kala weyn rususha ilaahay dadka uu usoo doortay adduunyada soo ma ahan ayagaa ugu imtixaan badnaa marka kullama nolosha lagugu dhibaayo there is a reason why Allah is testing you and with all the tribulations nolosha lagugu imtixaana lagugu dhibaayo dadnimo adiga kugu jirta oo lagaa soo saarayo wa marka ma ahan wax oo xumaan kale oo gooni ah wadata maa dadnimo adiga kugu jirta marka galmudug inay the foundation of Somalia inay tahay
أنا ما أجي هذا before the federalism وحنا سوي استرجل من البناء عشان ما كي غيبيان كم فوق البناء اللي بتري فهو الإنسان هذا حوالي استرجل من البناء كنتي 2016 كي كامبين كي كان عن مقدشة وإنجوجي dadku ugu firfircoona waxay ahaayeen reer galmudug. Today the most influential politicians in Somalia waa ayaga. imtixaana iska jiro of course galmudug waa imtixaana tahay reer galmudug imtixaanooyin imtixaana iska jiro imtixaankaasna bacdul axyaan iimaankaaga intuu leeyahay waa lagu imtixaana marka anaga reer galmudug waan u duceynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inay sabab u noqdaan wax Soomaali laga filayo biidnihi alkariim wayna dhacaysaa. Professorkana I'm way too junior for the professor. Like in my best friends and mentors, أيوم على نوعها. That's good one. رجع أنا ما أنت عم فيرسلو as role models. أيوم بروفيسوركم على نوعها. دول الشيء اللي سنة هنا قلنا سبيلنا الكريم تلقوا قول استجزاكم الله خيرا. كان تايتل ما توصل له. تايتل هذا هو بمركز الاستثناء. ما السكول لاين حتى مرة. فلا تهديله بهملها ما. والله أنا أقول من تدا خطرة. رباشا نجي له عليه السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما هو سلامتين كسوق الجلياش شركا رجل دمر رمان أضياشة هل كان وحكم تلايا لما قيبوا حكم تلايا مروح أنا أضي الصومالية أضياشة من السودان. مثلا هذا المشكلة اللي أنا كسر جدا ومتلايا أنا متلايا. waxaan halkaan sugu nimid taageerada oo aad aan ugu faraxsanahay ah shirkii hobyo ka dhacay. shirkaas wuxuu ahaa shir aad xasaasi u ah dadkuna ka sugaan wax badan. mar waxaa lahay ma kala jafjafan doonaan mise laakiin si farxad loogu soo dhamaaday dhammaan waa ku farxan. waxaan rabaa horta marka koowaad madax saxa ee la soo doortay oo shirkaas lagu soo dartay labada nin anu ninkan shirwac mar baan saragnaa marna halkan u yimid aqoon saas isku malihin laakiin in Cabdulla Weheliye si fiican ma aabiis ma saaxiib ahaan jirnay isagoo yar baan aabiis aan saaxiib Cabdulla Weheliye korna Cabdulla Weheliye hal uu naxariiso ninkaas aan saaxiibna wada shaqayn jirnay. waxaan rabaa marka dadkan hadda dad sida baarlamaanka lacag soo baxay ma aha waa niman odayaal keeneen waad aragteen shirkii hubiyo wixii oday cimaamad leh ama gar casaa ee fadhiyey baa soo doortay laaluush iyo lacagna kuma soo bixin. waxaana marka hadhow biri ka maalin mid baan media wuxuu kusoo qorayaa waa oday tuug ahay war oday ma aha war horta waxaan rabaa kowga horta ma caawa laga bilaabo qofka wax soo qorayo qof dhaliilahayo laga bilaabo madaxweyne farmaajo ee Soomaalida hadda ugu sareeyay asagu wuxuu soo qabtaa noo hormariyo markaas ka bacdi hada leeyahay wax kale markaan ogaanay markaas waxaan rabaa haddii aan u soo noqdo horta war intii la dhihi lahaa waxaa yidhi saaxiibkii koofiya laga hormariyay marka war kale hadda ma dhihi karo asaa dhameeyey tii ducadii iyo baraamburkii iyo xigmaddiina gabar baa qaadatay anigu waxay haraab iska yar. waxaan rabaa haddaan kaftanka usoo jeesto waxaan mid baan waa wareystay oo qolyaha warkiida ku shiray boosaasan waxaan ku yiri waryaa dhib badanideyna markaas wuxuu yidhi war dhibkaas sheegaysid oo aad aragteen dhibku 10 buu ahaa hal xabaan Soomaalida usoo gudbinay 9 kale annaga isku haynay marka halka xabaa la qaynaysa war 9 baa xamilayna baaraba marka calaa xaal haddii wixii laga heshiiyo okay waxaan iyo oday adeerka wuxuu jiraa habar gidib iska celi oo ka celi oo kala celi hadda waxaan maraynaa intii weynay dhamaatay oo meesha soobiyo kusoo dhamaatay waa maasantiin intaan wax taageersanahay waxaan rabaa haddaad nimanka idinku taageertaan bulshada Soomaaliyeedna taageeray ka helayaan laakiin haddaad intii soo dooro wayso ay taageeri wayso taageero anaga naga heli maayaan. waxaan ku dhahayaa cali balcad
وسيكا دونا puntland iyo galmudug waxaan u maleynayaa marka hore waa wada salaamayaa inta ay dhegeysanaysa hadeer iyo hadda ila joogtay inta hawada naga dhegeysan doonta waxaan idinku salaamayaa marka hore salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga horta hore galmudug iyo puntland waxay yihiin dad maaragtay walaalo ah oo wada degan oo isdhalay oo lagu kala dhex jiray oo lagu kala warami jiray oo maaragtay ahaa dad loo kala turjumi jiray la dhihi karaa loo kala turjumi jiray hadda waxa waaye turjumaanka uu dhamaaday dad waxaan nahay u baahnayn in ay dadku kala dhex jiraan dad waxaan nahay danahooda ka tashan kara nabadooda ka tashan kara horumarkoodana ka tashan kara puntland markastaba horta hore madaxweynaheeda ku-xigeenkeeda dowladda sida u dhan tahay isimadeeda shacabkeeda halkaan iyo halkaasba inta joogtaba waxaan usoo jeedinaynaa hambalyo ballaaran dadka halkaa hobyo isugu tagay kuna doortay qof iyaga hogaamiye u ah aada iyo aad baan usoo dhaweynaynaa ay tahay puntland guddigaha iyo maaragtay arrinta lagu taagay tiirarkeeda waxay tahay in ay iyagu marka horeba ay raadino soomaalinimada iyo midnimada iyo inaan wax walba oo hor istaaga aan ka leexano wixii nabada intii nabadu istaagta iyo intii ma aragta rabtana in ay hor u socotana aan garab istaagno galmudug maalin dhaweyd waxaan joognay halkii lagu calama saaraya ama lagu hambalyeynaya dhahe ninkii maaragtay jubbaland axmed madoobe markaa madaxweynihii marka waxaan nidhi ninkii hadda cirka xirtay oo badda xirtay oo dhulka xirtay oo maantana minneapolis u xiran tahay inaan taageerno oo ku qasbanna haddana waxaan nidhi inaan ma aragtay waxaan u istaagi doonaa inaan anaguna aan galmudugna wax ka dhisno haddaana puntland nahay oo galmudug nahay macnaha puntland iyo jubbaland hadday istaagto galmudugna istaagto soomaaliya oo dhanna way wada istaagi doontaa waxaana rajaynaynaa inuu qof walba meeshuu joogo markii lasoo istaajiyo oo laga soo shaqeeyo markaas soomaalinimada in loo imaado wixii lagu kala tagana markaasa lagu heshiin doonaa aad ba u mahadsantihiin hambalyaa idin leeyahay nagisoo dhaweeya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الدعاء يقرأ الأخرين وقت الله نوع أنفع. أول كده وابور هنتي إلى وإسعر بدل نبور أيدش. مدة الصومالية إن يتمني وفهمي. مرجو حين محيط الدور. إلهي يوكلك كوا بورنا. ومسكح الله كبير. شروع وهو المقامة دنياها أي دورتين مكان حلا والبحر دب ولاطو يبدوني بحيانك طبعا ما هم لا يدون وحي لو دي إن لو إيمان دون إن لو دون هم لا يدون إن شاء الله سان جاء عنكم عبد الله وهي ما أرتاي مبوغ يقل هست وكذا حقيقة صاصة حساب ترى لين أقوم هنا وهجامنا مركي إني وحكي الصوت بحان وين أيام جينا إن شاء الله وحام مركات إن قد جان الصندوق سدح أفر قراءة وسير مرينا إلا وحال عليي لغا يطبان قفوض واللوء الشيء بيلي لغا صوحلة واللوء عليي بيلنا لدرسو يبقى قالي كما دفتنك من الكتيجة هبركي والله يطبان قف أيال علي وحال ماشا استفهمي إلا الرادين هاي وحلالة أو حركة أو أرنتو أي رم تكت هذي أرنتو أي تكتو
runtana oo runta la aado waxbaa soo baxa aad aragto wax soo waayey waxaa jira cadaalad darro wax kasta oo wax cadaaladii inay soo waayaan neeba marka allah ballan qaaday ciddii cadaalad ku dhaqanta inuu soo garab taagin marka qof allah wax u ballan qaaday hadduu cadaalad sameeyo inuu weynan dukaro wuxuu doonayay macquul maaha habargidib waxaan ka rajaynaynaa insha allah inay ay samayna cadaalad dhexdeeda ah iyo cadaalad dariskeeda ah iyo cadaalad soomaaliyeed ayaan ugu fadhinaa waa buurtaas riman ilaahu buura ka dhig wataan leena taas markaan ka dib inta nadaan meesha fadhiya ma sharafta leh usu timi ee taageerada habargidir midowday ay la weynaatay waxaan ka codsanayaa ummaddii soomaaliyeed haddaan annagu midowno inteenan haddaan midnimo u dhaqaaqno ka soo qaad waxaana dhowr iyo boqol dadka badanba haddaan midnimo u dhaqaaqno oo intoo kale ay ku darsoonto intay kale kusii darsoonto ummaddu mid bay noqonaysaa waxaadna ogaataan xaqiiqdii haddaanan annagu dhulka iska qaadin inaanan dhulka ka kacayn waxa wax lagu noqdaana waa saas saan wax ma qabato hali wax ma qabato san ayaa wax qabato insha allahu ummad garabsata oo walaala oo ehel ah oo rixim ah ayaanu wada nahay dhammaanteen waxyaabahan hadda naloo biyon oo sida uu sheekh hore noo sheegay la karxayan oo iska dhammaan doonaano 4.5 kaasi wax la sheegayay wax dhammaan doono waay diintana cidna nooma diidana annagaa diinta ogaada taas dastuurkeenna xorriyaddeena ku qaadanay galka ugu koreeyay ku qoran tahay shareecada islaamka inay soomaaliya ku dhaqmaydo cidda diidan waa annaga cid kale nooma diidi karto cid diidi kartaa ay nooma jirto ninka waxa xabaddu noogu socotaa waddankeenna oona lakugu marmarsoona waxaa waaye diinta u diida iyo diinta u diidi waxa diintiida ma jiraan mana diidi karno insha allah waxaan leenahay u jeedinaynaa baaq dadka mas-uuliyiinta ama maamul goboleed ha ahaadeen ama federaal ha ahaadeen inay ummadda dib u heshiisiin dhab ah ay dhex dhigaan cid walbana ay u yeeraan ummaddana markaati uga dhigaan qofka nabadda diida inuu soo baxo nabadda qofka diida inuu soo baxo ilaahayna ha laga baqo dad ilaahay ka baqa noqda oo dadka cadaalad ku hogaamiya dulmigana ha la iska daayo nin walba waddanka xaq buu ku leeyahay حقوق ذي حقه إليه هلا إلى اليوم قبل والبا دقمة والبا هلا إلى نسو لمن كفدرال كبلاح ومدحون ياشا وحاول تردار من فدرال حاولت الواقع دولة دحين حال سوقات مركي قبل لكيان وحيها إلا السيقي والدقموين كلو السيقي نور ما بيش ولدت دولة حوك سوقات أودي دولة حمر كسوقات ولدت ذي برتي أسوق كترينا دقمة كله إنه أصوب مامور ربع مرك وطلوا صوص ما قال ها ده أصوب أدوات قيدها كوا قيدية الله كذبه كوا قيدية كوا صوب دوتنا عندنا الله مجدده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا للإسلام. الحمد لله الذي جعلنا للإسلام. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله waxaan ku leeyahay dadkii iga soo horeeyay wax walba information sheegay waxa la sheegay wax walba la sheegay ilaahay waxa la yiri man la yashkuri naas la yashkuri Allah horta bana soo qaad hal daqiiqo ii qab halkii daqiiqo marna ka gudbo man la yashkuri naas la yashkuri Allah qofka dadka ku shukrin ilaahay uu ku shukriyo marka waxaan rabaa ku shukriyo ragga maanta meesha soo qaban qaabiyay dhalinyarada isku timid waqtigooda soo geliyay juhdiga badan soo geliyay
aan ku dhaho jazakumullah khair anigii familkeen waxaan ka imaanay Rochester Minnesota hal sac iyo xogaa in meesha u jirto waxaan kaloo rabaa inaan jazakumullah khair ku dhaho nin degan South Africa oo ii soo sheegay inay meeshaan ka jirto maanta ninkii kale wiil walaalkeena oo yidhaha Cabdullaahi Balwaan qofkii yaqaan waa yaqaanaa qofkii kalena waxaa ku dhihi lahaa fadlan dhegeyso waa nin dadkiisa aad u jecel ma isnaqaano ninkaas ma yaqaano anna ma aqaano intaan ka deganaa laakiin connectionka meeshuu ka jira arag Rochester aan deganahay shirkaan ma ogeyn asagaa fiirsadaa asagaa ii sheegay dhalinyarada waa laheen oo meesha shirka qabanqaabinaysay aa u gudbisay marka idinkana jazaakumullah khair wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Purina badikala gobi ay oyata Purina badikala gamalagu dakayo gelu kugu darara Purina badikala hurdalagu gamayo Purina badikala gabadagu arosa ubadagu gadacha Purina badikala gobi ay oyata Purina badikala gamalagu dakayo gelu kugu darara Purina badikala hurdalagu gamayo Purina badikala gabadagu arosa ubadagu gadacha وصيبي وصيبي بالملك هاي مرياني قعروي والكيس كستبكاري وكيفكو هسيبي الله سيبي Gonna wanna gonna yaro ummadika guduto dini lagu mahadika ولكي سباهاga gudal alino kale dirka haysta xoog badan go'aankiisu yahay ganacsiguna waana gonna yaro ummadika guduto dini lagu mahadika laysku guba iyo guma iyo rasaasuun lama sarta guudko layskuma garaace garashada lamala galadeeba weeye garbasi mandaqiinoqay eeba weeye garbasi mandaqiinoqay garashada habboone guurtidu sameeyeena godobiyo xumaan maale laysku guba iyo guma iyo rasaasuun laysku guba iyo guma iyo rasaasuun lama sarta guudko layskuma garaace garashada lamala galadeeba weeye garbasi mandaqiinoqay eeba weeye garbasi mandaqiinoqay garashada habboone guurtidu sameeyeena godobiyo xumaan maale gurmadkii ammaankiiyo inayna badagaado gurmadkii ammaankiiyo inayna badagaado galmudug nabad kuwaankaan kuule uga baryayna galmudug nabad kuwaankaan kuule uga baryayna
gurmadkii ammaankiiyo inay nabadda gaadho gurmadkii ammaankiiyo inay nabadda gaadho galmudug galmudug samakuwaataan guule uga baryayna galmudug samakuwaataan guule uga baryayna galmudug nabad kuwaataan guule uga baryayna galmudug nabad kuwaataan guule uga baryayna galmudug galmudug samakuwaataan guule uga baryayna galmudug samakuwaataan guule uga baryayna galmudug galmudug nabad kuwaataan guule uga baryayna galmudug nabad kuwaataan guule uga baryayna galmudug galmudug samakuwaataan guule uga baryayna galmudug samakuwaataan guule uga baryayna galmudug galmudug samakuwaataan guule uga baryayna galmudug samakuwaataan